magaalada Burco waa magaalo koraysa fidaysa waagi baryaba muuqaalkan duleed bilicsan waa mid ku yimid dadaalka bulshada gobolka Togdheer iyo hanaanka dawladnimo ee soo taxnaatay tan iyo sanadkii 1991 markaasi oo ku beegneed markii dalkan iyo dadkiisu ay gudoonteen in ay noqdaan qaran madax banaan hay'adaha dawladda gaar ahaan kuwa sida tooska ah bulshada ugu adeega waxa ay u taagan yihiin inay si cad uga jawaabaan baahida bulsho ee hadba soo food saarta maamul wanaag waxa uu dhabaha u xaaraa horumar bulsho ay mahadiso waxaana uu meesha ka saaraa musuqa isdhigashada iyo haleel la'aanta danta ummadda barnaamijkani waa mid aan ku eegayno wakaalada biyaha ee magaalada Burco ayadaha dhulkeena xilka dhabarka saare loo dhaarshay qaranka waxa dhaxo hawlida sugaysa waxa hawlida sugaysa wakaalada biyaha ee magaalada Burco waa mid ka mid ah hay'adaha qarankani uu igmaday in bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan kuwa degmada Burco in ay siiso biyo ku filan taas bedelkeedana dadweynuhu ay bixiyaan lacagta biyaha ee ku waajibtay wakaaladan muddo dheer waxa gacanta ku haysay dawladda hoose ee degmada Burco waxaana la rumaysan yahay in magaalada Burco in biyaha hoosteeda yaalla ay haqabtiri karaan dad iyo dunyaba laakiin waxa dhinaca kale dhabowday in muddadaasi dheer ee dawladda hoose ee degmada Burco ay maamuleysay biyaha wakaalada ay wakaaladu noqotay mid fadhiida oo dadweynaha magaalada Burco ka haqabtiri kari weyday guud ahaanba biyihii ay u baahnaayeen isla markaana xallin kari weyday khaladaadka yaryar ee ka jira gudaha wakaalada waxa si toos ah u soo shaabaxay dhawaaqyo gogoos oo tilmaamaya in biyaha magaalada Burco ay qarka u saaran yihiin in guud ahaanba ay dadweynuhu waayaan biyo ku filan الله يذكرني أنه وحنا هين إن بدن أيام عاوج لي لا شقين شقني أي نفس من شرين وحنا نريد شنو وهالشمان كي عطينا من صار بروح كنت أسود بذلك الوجه أنا مرجع المزورين أو كتلم معي وكوبيا عشلا يصير دكتور وطلع فوقهم وأنا قلت وأسود بذلك الوجه waxaanu in badan baan isku dayay in badan baan caawinay in badan baan wax badan sameynay runtii sidii la soo tilmaamay mas'uuliyiin kasta oo meesha la keena oo maareeyaan iyo ku xigeenimo ah way hanan kari waayeen in ay wakaalada macdanta iyo biyaha ee gobolka wakaalada macdanta biyaha ay hantaan sidii loogu talagalay u shaqeeyo way hanan kari waayeen وحنا نسكبي حستيني أنا قلفت يابو أن إن بدك كسر شقيني أو كنت لهلي مثلا ما أنت مرجع أن كب خيرين وزير كمعلتي بيها هي وكالة برعو وعليها هاي وعلى اللود اللي وحنا بينات التلبان طول ورقناها. وديل كبوحشة إيشي كمرنتي نبتة سهايستي كدور سجدة دلكي. geesta kale waxa soo shaabaxday oo maamuladii xilligaasi ka jiray degmada Burco ay ogolaadeen in dad gaar ah ay biyaha magaalada Burco ka ganacsadaan eelasha shacabka imika biyuhu qaataan ama ha noqoto oo lagu reeyay ama ha noqoto in Saleebaan kul ama balaasa ha noqotay biyalaan awgeed ayaan qoraal ku bixiyay in eelasha shacabka dadweynaha markii biyo waayeen laga ay ka cabaan waa ku imika shaqeynaya geesta kale waxa iyana dadweynaha magaalada Burco ay muujiyeen baahi mug weyn oo loo qabo in ay mar uun helaan isbedel cilmiyeysan
waxaa xilligaasi uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu soo dhisay golihii wasiirada ee ugu horeeyay kuwaasi oo ay u taalay shaqo adag isla markaana ku baahsan guud ahaan dalka Soomaaliland. Xuseen Cabdi Ducaale waxa uu noqday wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland waxa uu la yimi qorshe ka jawaabaya baahidii biyaha ee ka taagneed guud ahaan dalka. waxa uu gacanta ku dhigay ama gacanta wasaaradda ku soo celiyay wakaaladaha biyaha dalka oo xil ay maamuleysay muddo dheer dawladaha hoose. waxa uu markiiba magaalada Burco u soo magacaabay maamulo ku shaqeeya siyaasadda biyaha qaranka. 17 Oktoobar 2010 Ibrahim Jirde waxa loo magacaabay maareeyaha wakaaladda biyaha Burco halka ku xigeenkiisana loo magacaabay Faarax Cali Yuusuf. bilowgii hawshoodaba waxa ay soo celiyeen kalsoonidii shaqaalihii wakaaladda oo muddo dheer aan si toos ah aan u wada shaqaynaynin maamulka iyo shaqaaluhu. dadweynaha magaalada Burco oo ka aamin baxay wakaaladda ayay iyagana ka kasbadeen kalsooni maadaama ay tuseen shaqo fiican oo ka jawaabaysa baahida biyaha. waxay maalinba maalinta ka dambaysa mas'uuliyiinta wakaaladdu ay dadweynaha tusayeen waxoogaa horumara. waxay aawudeen amaba se gufeeyeen galdaloolooyinkii ku hoos u dhigayay sumcadda wakaaladda. taas bedelkeeda waxa ay dhiirigelin ka heleen dareenka guud ee dadweynaha, madaxda gobolka, degmada iyo xukuumadda. maalintii sanadku deedo maalinayna ahayd maalintii aan imi wakaaladda xeradeyda waxyaabo badan baan ka eegay hawada ay ku jirtay khasnada meesha la dhigo lacagta waxaan malaynayaa waxay yihiin laba rabdood oo aan si 200 dirham shilin weeye Soomaaliya. xafiisyada darxumada ka muuqatay, xerada darxumada ka muuqatay, shaqaale suuli ka shaqeynaya gudihiisa suulina fadhiyaan ku tegay suuligal nin fadhiyo xafiis dhigay ayaan ugu tagnay. mashiinadan cusub ee dhalaalaya agteena yaala waxa xeradii la wax wada dhaxaystay oo wada biilaqaystay oo aan shaqeynayn. maanta waxaan malaynayaa idina ma dafiri karto horumarka wakaaladda Burco ee biyo ay gaareen qaaween bay siinayaan. ilaa imika wixii aanu soo aragnay wax lagu qanco oo wanaagsan oo baahida biyood ee ka jirta magaalada aad iyo aad u dabooshay ayaanu soo aragnay. waxaan u mahadinayaa mahad gaar u jeedinayaa shaqaalaha uu kow ka yahay maareeyaha wakaaladda biyaha, isuduwaha wasaaradda khayraadka biyaha, hawsha ballaaran ay wadaan ummadana u wadaan gacantana ay isku haystaan. taana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. wallaahi qofku barina halaasan raga baqaski waa ceeb nin baa laga haya. anigu ma qariyo de horaan u sheegayo idaacadahan ka sheegayo de meel baan ka sheega ma qariyo waayo qofku bini aadamka inta uu dhaliisha leeyahayna haddii aad ka xishoon weydo waad sheegi kartaa. inta uu wax qabtana inaad sheegtaa waxay noqonaysaa raganimada ka mid ah. inta ragii hore wuxuu oran jiray anagu ninka hebel xita ninka ay culka yihiin iska daanimay de yaani saaxiib yihiino waa ninka hebel ilaa anagu culbano laakiin wana caynkaas xataa ninka aydan isku fiicnayn ba diiniyan iyo insaaniyan ay ku faraysaa in de waxa uu yahay inaad sheegto. taama qariyo in badan baan ka sheegaa waxay ahaydee haddaan been sheegayo amaan waxaan shaqo aan lahaynaan yar foocinayana dee waa la maqlaya. laakiin waxaan idhaahdaa labadan nin maanta jooga maxay ahaydee wakaaladda biyaha laba dhinac markaad ka eegto anigu cid ka horeysay oo amaanta aanu hayaa ma jirto. markaad laba dhinac ka eegto mid weeyaan horumarka biyaha inta ay gacanta ku hayeen biyuhu sida magaalada ugu horumareen. magaalada waad ogtahay meesha la yiraahdo afgooy wixii xagga ka xiga caagada la dhaansan jiray oo inta biyaha halka laga xidho oo barigan oo biyuhu u soo janjeersan hadii jeer laga xidho la xagga qabteen biyuhu markaas hadaan lagu taag waay jiray. maanta Saleebaan kulba shower lagu meedhanaya
dee way ku ammaanan yihiin oo labadaas waxba ku ammaanaya ayaga hortooda kama lihiyo dee aniga laaluusna kuma qabo qaxwona kuma qabo laakiin qofku markuu shaqadiisa marka uu qofku garto dee haddaan yacni aan la tashjiicin oo la dhiirigelinin dee waxay noqonaysaa mushkiladayna haysta Soomaaliland maanta wax kale ma berigii hore waxa jiri jiray rag iyo rife kalkaal nin ragaa jiri jiray nin ragoo kaaba oo ninka ragaa kaaba jiri jiray rag iyo kalkaal baa loorin jiray odayga af Soomaaliga sheegtay waa kalkan fadhi maanta raggu sideedaba waxa weeye maanta waa nin raga iyo rife kalkaal kii rifaha baa ciidan haysta oo ogtiin bacd baan taagin waan soo gaabinaya Soomaaliland waxayna haysta maanta qof wax qabtay oo wixii uu qabtay la leeyahay ma jirto oo la saarayo tamashadayna haysta maanta markan gudoomiyaha golaha deegaanka aan hayleeyaa waxa maad qaban ka ila maanta waxa maad qaban markuu barisaqa isaguna iga dambeeyo ana maxaan ku oranaya oo kama tadiinu tudaan sidaad u dhaqanto baa lagu dhaqmaya ama xisbi ahaw ama qof ahaw sida u dhaqanto baa lagu dhaqmaya laakiin waxaan in badan sheegaya laba nin oo ka horeeyay oo meesha aan ku amaano garan maayo magaalada Burco dacalkan maanta ka joogta ama si aad ka degan tahay waxa hubaal ah in aad helayso biyaha wakaalada isla markaana aad isticmaalayso hawlgal ballaaran oo loogu magac daray biyo ballaarinta magaalada Burco ayaa si rasmi ah looga bilaabay bilowgii bisha 12 ee sanadka 2014 kaasi oo la doonayo in biyaha lagu gaarsiiyo xaafado aan hore u heli jirin biyaha hawlgalkan waxa hubaal ah inuu gaari doono xaafadaha Koosaar Cali Xuseen Aadan Saleebaan oo ay ku dhaqan yihiin dad dan yar ah isla markaana aan muddo dheer helin biyaha dawladda ay maamusho gaar ahaan kuwa wakaalada daafur maahe maanta uu bilaabanayaa marxalado fara badanna uu ka soo gudbi ma haddaan dib ugu yara noqdo tartankii markii lagu tartamayay lix degmo oo Afrikaan ku tartamay mashruucan markii ugu dambeysay waxaan isku soo hadhnay degmada Kigali ayaan isku soo hadhnay waxaanu ku qaadnay contribution kaanu kaga qaadnay ee aanu anagu kaga dhawaajisnay baanu kaga qaadnay Kigali waxaanu codsanaynaa wakaalad biyaha haddaan nahay maamul gobol maamul degmo mas'uuliyiinta wasaaradaha taliyaasha ciidamada nooc kasta yihiin si mashruucan uu hirgalo oo mashruuc kalena uu daba joogo ay iyagu leeyihiin oo sanadkiiba barbay bixiyaan marka haddii ilaahay ka dhigo soo mashruucan uu najaxo waxaanu rajaynaynaa oo cid walba ka codsanaynaa inuu maalinka maanta baalaha la iska taago soo hirgalo oo intuu ka kooban yahay waarkiisa markuu halkan ka bilaabmo laba ceel baa halkan naga soo horeeya wuu sii marayaa wuxuu tagayaa ilaa iyo meesha Siirooga ay magaalada kaga xirmaya Siirooga qaybta waxa kale oo qaxootiga kan labadan qaxootiga dhinaca kan 4 kiiloomitir iyo badha iyana wuu bilaabanayaa oo haddii ilaahay ka dhigo wuu bilaabanayaa maantadan 4 cagaf meesha taagan lababa meel bay ku qoran yihiin galbeedka magaalada wuxuu ka imanayaa Jarmalka wuxuu tagayaa xaafadda Cali Xuseen sidaas uu ballaaran yahay koonfurta magaalada inta u dhaxaysa Faraskabood iyo wadada Sayladda iyadana wuu ugu dambeeyay halkaas ku saaraya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka dadweynaha waxa ku waajiba wixii loogu talagalay shanta fooswaa 1900 marka booyada laga shubtana waa 15 foosado inta u dhaxayso aragtaan dadweynaha in lacagta iska bixiyaan ba ku waajiba iyo dawladda iyo hay'adaha dawladda way iska bixiyaan waa ku waajib wakaaladana waxa ku waajiba in dadkii biyo gaarsiiso waxa halkan aan mahad uga naqaynaa hadaan boorkii nahay madaxda ciidanka qaranka oo bixiyay dhulka imka taangeeda laga sameeyo taangiga halkan saddex ceel marka la isku xiro taangi weyn waxa laga dhigayaa xerada militariga horteeda halka in urshadi galida militariga bixiyay oo u daneynaya dadkooda marka taliyaha iyo taliye ku-xigeenka imka halkan jooga aad baan ugu mahadnaqaynaa taliyaha qaybta booliiska oo nabadgelyada dhulka la marinayo asna ballan qaadin waxayna ma aad baan ugu mahadnaqaynaa
golaha deegaanka iyo maayirkooda oo ayana dhulkii la jeexayey iyo shaqada habeen iyo maalinba u heeganaa wixii magaalada u soo kordhiyana aad baan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha gobolka oo asna aan ka seexanna aad baan ugu mahadnaqaynaa dadweynaha reer Burco intaasoo hay'adood bay idinka shaqaynayaan idina waxa idinku waajibay inaydaan is hortaagin oo inta meel dhigtaan ayadaan halkan waxa weeyaan beebki mari maayo oo aydan ciidankiina dhibaatayn maamulkii dawladda hoosena dhibaatayn golihii deegaanka dhibaatayn gudoomiyihii gobolka dhibaatayn qoladii wakaaladda dhibaatayn qoladii cidna aydan dhibaatayn gacmo furan ku soo dhaweysaan oo ay cidda la doonayay in gacmaha ku meydhaan waa gelintu waxay dhistaa hiiga mas'uul kasta oo qarankan shaqo u haya wakaladan iyo waxqabadkeeda waxa mar kale ka marxaati kacay xubno kamid ah odayada cuqaasha haweenka magaalada Burco Burco maalmo badan ma soo joogay aad iyo ma maqlinkii hore heer kale maanta marayso deemaan filaynin anigu inay Burco halka gaadhayso waxay maanta maraysaa reer kasta oo Burco jooga inuu aqalkiisa gudihiisa qudrada reerkiisa ku filan ka samaysto labada balood ee dhisan ee inta yar daaradii ka banaantay daarada 10 geedo aad ka beerto oo aad biyo u heshaa wax qoyskaaga ku filan adiga dibad ka ganacsi adan doonanba oo aad beer dibad samaysan waxa kugu filan inaad hesho mar dad bi haysato inaad aqalkaaga gudihiisa ka beerto taasi waa taas tii la isweydiinayay waxaan ka marxaati ahay mala horena warbaahintu waa iiga maqasho waan u sheegay isbedel baa biyihii Burco ku dhacay Burco waxay ahaa weeyo kinaalka biyaha ee Somaliland lagama faa'iideysan qolada maamulka maanta haysa ilaa yimaadeen runta hada doonayso qasabadaha qalada ku xidhnaa neef iyo dabayl baa ka bixi jiray dadkan lacag bay ku qori jirtay runta saa weey neef iyo dabayl baa ka soo bixi jirtay xaw bay oran jirtay waxna ka soo bixi maayaan kildhi baa la qaadan jiray qalada dumarku wax kildhi bay ku meydhan jireen ma jirin rishaashad lagu meydhaa waxaan ilaahay markaa la hortagaa inay isbedel weyn ku dhacay oo ay isbedel ku sameeyeen nimanka maamulka imika jooga taasi waa taas waxa aad aan u soo dhaweynayaa wakaalada biyaha sida loo sheegay nin waliba wuu garanayaa maariye ku xigeenka iyo shaqaalaha biyahaba waxay u shaqaynayaan si cajiiba ilaahay baa mahadle waanu u mahadnaqayn waxaan horta aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in loo wada heegayahay in buryihii Burco ummadda la wada gaarsiiyo ku nool degmada Burco inay wada helaan biyo ku filan ma sha Allah weeyaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaan markaa dadweynaha ka codsanayaa inay biyahaas inaga inoo dan yihiin inaynu biyo helo danteena ku jirta reer kasta oo kamida degmada Burco degan inuu biyaha helo waxa ku jirta danteena aga ciidan qaran ahaan halkii laga dhisi lahaa haamaha kaydka biyaha ee mashruucan ayaa markii qorshe ahaan dhulka la qorsheynayay waxa yiraahdaa halka ugu fiican waa qayb kamida dhulka ciidanka iyaga qaranka qayb kamida bay noqotay qoraal bay noo soo sameeyay codsi taliyaha ciidanka qaranka aanu sheegnay General Ismaaciil maxamed cismaan shaqalle waxaanu isla qaadanay hadday dan guud tahay oo halkii haamaha kaydka biyaha ee magaalada lagu waraabinaya ay tahay inaanu bixino waanaanu bixina qaadanaynaa wixii qaybtayada qayb liix baan ka qaadanaynaa haddii alla yidhaahdo sidaa daraaddeed waanu soo dhaweynaynaa waanu gacan siinaynaa maamul ahaan iyo ciidan ahaan xoog ahaanba waanu ka qayb qaadanaynaa aad baanad u mahadsantihi waxaan leeyahay ciidanka wakaaladda biyaha iyo cid kastoo hawshaa ku lug leh oo ka shaqaynaysa gacan hala siiyo hala garab joogsado beebku waa soconayaa kolley cid buu hormaray oo odhan doonta waxaan leeyahay ha ka horaminina waa dantiinnii gacan siiya intaas waa intaa waxaa daba socda mashruucan kolley mashaariic badan oo kale waxa weeyaan waa sabankii horumarinta waa sabankii horumarka waa sabankii waxqabadka waxaan leeyahay ku xamdino oo wixii inoo qabsooma alxamdulilah aan nidhaahno waayo ilaahay wuxuu yidhi haddaad ii shukri noqdo waan kuu kordhinayaa qofka bini aadamkii deeqda ilaahay siiyo way fara badan tahay
caafimaadka ka mid ah inaynu u xamdi naqnaa laynooga baahan yahay inaynu u mahad naqnaa laynooga baahan yahay inaynu u shukri naqnaa laynooga baahan yahay waxaan leeyahay ummaddu ha aragto wixii loo qabto hana qirto shaqaalinta lig ka shaqeynayso waxa ka shaqeynaya shaqaale badan haday noqoto qaar kulida ku shaqeynayo beebka simaya iyo haday noqoto farsamada qaaniinba shaqaalu aad bay badan hawshan ka waran miisaankeedii culeyskeeda intaad wakaalada ka shaqeynaysa shaqa ka adag ma qabatay maaytaan oo kale wali adigu wali beeb inta leegdo hore noo soo maray ma jirin oo inta dherarka inta dhistanka inta leeg ah oo 6 kilomitir weeyaan kan imika halka la dhigay xagga kalena adigu 17 kilomitir baa imika hadii ilaahay ka dhigo horaantiisa aan ugu loon barnaamijkan waa mid biyaha lagu gaarsiinayo xaafado aad u tiro badan oo magaalada Burco ka baxsan gaar ahaan kuwa ay ku dhaqan yihiin dadka danyarta ah ee barakacayaasha loo yaqaano kuwaas oo ah kala xaafadaha Koosaar Cali Xuseen Aadan Saleebaan iyo xaafado kale waa markii ugu horeysay ee magaalada Burco ay dibadeeda oo ay tahay magaalo balaaranaysa maalinta ka dambaysa ay biyaha la gaarsiiyo waana siyaasad cad oo ay wasaaradda biyaha iyo wakaaladaniba ay si rasmi ah u dejiyeen inay ka horumariyaan biyaha Burco halkan aan ku suganahay waa xaafadda Aadan Saleebaan oo ay ku dhaqan yihiin dad danyari dareenkooda ayaan wax ka weydiinay dadka waayeelka ah ee deegaankan ku nool waxaana ay ku jawaabeen amaba iyagoo ka dareen celinaya biyahaasi ay yiraahdeen magacayga waxa la xiriir Xuseen Maxamed biyo gelinta waan u baahanahay aad iyo aad ilaahay dowladda barakeeyo anoo soo dhaweyso biyaha aad iyo aad baan xaq biyo ula liidana booyadaha noo shuba booyadaha taangida aad arkaysaa boodo noogu shuba biyo aad iyo aad bay dhibaato noogu haya ka ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa biyaha aad iyo aad waan soo dhaweynin kulanto aniga magacaygu waxa weeyaan Cambe Jibriil Cabdi waxaan ahay xaafadda Aadan Saleebaan dhalinyarada ka mid ah xaafadda Aadan Saleebaan dhammaan horta marka hore wax mahad ilaahay biyaha nagu soo socda waan soo dhaweynaynaa
horena dee in badan xaafaddu biyo way u baahned oo biyo lahayd imkana hadday dee imaadeen aad iyo aad baan ugu baahantaqaynaa iyagana maxamed cilmi ogle maxamed adeer biyogelin baa idinku soo socota oo burco biyo ballaadhin baa lagu wadaa waa mid ku wajahan xaafadaha danyarta ah ee magaalada ka baxsan ee aan biyaha muddo dheer helin sibaad u aragtaa biyaha idinku soo socota waxaan u arkaa maasha allah iyo wanaag aan raalli ka nahay oo dowladda iyo shaqaalahaba ku raacsan dad danyara baa tihiin xaafadan ku wacan bal xaaladiina guud ka war xaaladda iyada guud ka warramay waa ladannahay si wanaagsan baanu xagga dowladda xagga biyogelinta xagga haddii alla xugmahayay aanu ugu ladannahay laakiin wixii lagu soo kordhinayo waa u baahannahay sidoo kale halkan waxaa taagan hooyo ka mid ah hooyooyinka xaafadan aadan saleebaan degan dad danyara baa inta badan sida la ogyahay xaafadan ku dhaqan hooyo magacaa faadima waada hooyo biyaha idinku soo socda wakaaladda biyaha biyihii soo wada kaabigii soo saaran yimaadeen siibad u aragtay biyaha si fiican baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay xaafadda aadan saleebaan dee waa u baahana booyadaha waa ku yar dhib qabnay oo 2 iyo 3 aan sugi jirin waan u baahana أنيس وهشنو ولاليان وذا تيرنو ولاليان أنيس وهشنو ولاليان وذا جيري أحمد علي سمطر وأنا سوري وين وسارة بيجلينت أي قبانا سبيا نسوا قلينيسو هذا نهاية على الحسين ونقوم بهذا علينا صح يدولة دبا صح baahin teeleg waa qabtaa baahi badan baan qoonaa xitaa dhartii waxaan ku beeranaan weeyna waxaan mariyay aan ku meedhanaan ayaan laanay oo qasabadii way naga kala fog dadka xaafadda ka waran waa dan yar weeyaan dadka xaafadda sax waa dan yar ayuu badan yihiin waxa kale aanu xaafadan cali xuseen kula kulanay ardayda dugsiyada sare oo burca gudaheeda wax ka baratan Soomaa iskuulka Sheekh Bashiir xaafadan cali xuseen bay degan yihiin biyihii biyo balaarintii burca markii ugu horeysay xaafadiina imanaysa dadkii qalinka iyo bugaagta istiibatiin ka warrama dareenkiina ma soo dhaweynaysan waa soo dhaweynaa si fiican soo dhaweynaa marka hadda biyo waan baloo bahay waan gartay marka biyo hadda waan soo dhaweynaa si fiican aad soo dhaweynaa haya adna si fiican ma soo dhaweynaa biyaha xaafadda cali xuseen laga sameeyo mashruuc adu beeray ma wax leeyin beeran waxaan leenahay haya maxaa ka waraabisan waxaan ku waraabinaa shirka waxaan ka soo dhaansanaa qasabada naga fog in dooro naga fog haya ayaan ka soo dhaansanaa sax sidaa darteed markaa si wanaagsan baan soo dhaweynaa sida biyaha lagu soo gelinay maalgelinaya waad maasantay adna magacaa maxamed xamed xuseen haye waan soo dhaweynayaa mashruuca biyo balaarinta loo baahan yahay waan soo dhaweynaa markaa dowladda Soomaaliland waan mahadcelinaa iyagana si fiican baan ugu mahadcelinaa sax marka waan doonaynaa biyaha in loo ballaariyo ilaa hadda dadkaanu kula kulannay xaafadan cali xuseen iyo xaafadii kale aadan saleebaan soo marnay dadku aad waxay muujinayaan dareen ka turjumaya inay biyaha aad ugu baahan yihiin bal iminkana waxay geyn doonaa daawadayaal xaafadda Koosaar waxyahayagii rumaado haddaba halkan ku suganay waa Koosaar soo saamaha bal waxaad nooga warantaa biyaha iyo dhibka idinka haysta boqolkiiba boqol biyaha waxa aad iyo aad dhibta ku haysta waxa weeye booyad ayaa u dhaamisa waan idinka arka booyada marka waxa weeyaan anagu aad iyo aad waxaan idinkaga mahad celinayna idinkoo noo keena biyaha aad iyo aad baan u baahan imsa booyada magaalada ka maamaya loo booyado marka midda inta badan way xumaataa tan ay marka aragtaan ba aad u socota marka booyadaas baa magaalada biyaha u shubta dhowr kuna qoys baa dalkan ku nool booyadani maanta dhan bay ku wareegaysaa in adigu aad baad soo dhaweynaysaa aad boqolkiiba boqol biyahan dawladda keentay gaar ahaan hay'adda u qaabilsan baa keentay wakaaladda biyaha burco in iyaga ka waran ma mahad celinaysaa aad baan ugu mahad celinaa haddii aanu aragnana kaba si aad mahadna waxaan kula sii kordhinayna ma in wali waxaan ku sii siqaynaa xaafadda Koosaar halkan waa foosto booyadii iminka ka dhaqaaqday sawirkeeda aad arkayseen biyaha ku shubtay
waxaanu xaafadda mandeedna gudaha u soo galay waxaanu ka warqabnaa in ay kaabiga xaafadan biyihii u soo saaran yihiin biyo ballaarintii magaalada Burco dadka hooyooyinka iyo dadka danyarta ah ee xaafadan ku dhaqan oo baahi ballaaran u qaba biyaha muddo dheerna sugayay ayaanu dareenkooda wax ka weydiinay halkan magaca Faadma Ismaaciil Faadma ka waran biyihii baa la leeyahay way ku soo socdaan kaabiga soo saaran yihiin sidee baad soo dhaweynaysaa biyaha waxaan u soo dhaweynaynaa si fiican aadna waana ugu mahadnaqaynaa insha Allah tacaala waxaan filaynaa inay soo gaaraan sida noo sheegaysaan intaad xaafadda adigu deganayd waxaan deganaa 12 sanadood marka biyaha qaabka idinku yimaadaan iyo dhibaatada idinka qabsata iyo la helaala waayabaan malan inay yihiin bal jawiga noocaas nooga waran wallahi biyaha waxaan ku helaa si adag inta badan xilligan oo kale biyo weyn ugu adag yiin aad bay booyadu noogu tahay ciriiri sixirka bacdamaaba ay meeshu tahay meel aad danyara oo duruufay iska jiraan biyo waa nagu qaalay sida awgeed waanu helaa adigu biyaha si kastaba aanu helay laakiin waa lagu adag yihiin xilligan jiraalka oo kale maxaad u baahantiin nimanka in la idinku soo dhaqsadon Soomaa in waxaan aad u soo dhaweynaynaa oo aanu aad u jecelay inaan helo biyo gelin sax tumbal noo waran waxa weeye biyaha aad baan u jecelahay in loo soo jiido sax saasoo ay biyo la'aanibana haysatay oo aanu booyaduhu aanay badnayn magaalada yimaada marka 2 cisho 3 cisho mar baanad helayninba ayaama dhan wax aad maxay heday aad cabtaba haye saasoo kale imka shalay oo kale booyadu way naga maqnayd may imanin magaalada soo gelin habeenkii iyo subaxii iyo maalintii dambeba waanu biyo la'ayn waan gartay marka birkadihii xitaa yaryaraaya bacmiska ay noogu shushubaysay kuwa ka dhamaaday oo reere ka tambateen bad helaysaa sax in badan baad wareegaysaa maanta dhan waxaad wareegaysaa meel aad biyo ka soo dhaansato haye taasi dhib maanay ahayn marka wallahi waa mushkilad weey laakiin biyihii dawladdu imika agtiina marayaan sal noo sheegay waxa rajeenayaan idin soo gaaraan sax joon ka dhiganaa wali kameena bixin xaafadan idamada leh haye te waa xaafadayadii watan biyaha lagu shubay kamaradana soo eegatam garansa marka waxaan soo dhaweynaynaa si aad noo qaabishoon ku mahad celinaynaa bal nooga waran jawiga iyo biyaha aad iyo aad baanu baahi ugu qabnaa biyana loo soo geliyo waa baahida weyn ee aan u qabna weeye booyada marna la waayayo marna la helayo ee maalintii 10 jeer la daba socdo ayaa biyo noo ah marka aad baan u soo dhaweynaynaa biyo gelinta waa halkan waa foosto imse lacagti imse weeye 6 waa 6 shilinka Soomaaliland sax 6 shilinka Soomaaliland waxay ku haysaana waa 2 cisho imse ku haysaa waa day ugu badata 2 cisho qoyska tiradiisu waa imse qoyska tiradiisu waa 10 waa jawaab mariyo laho cunto laho mayd laho wax kasta laho warwar laho inta korma ka goy sax markay go'dana waa wareegaysi dambe oo kalba meel laga soo daad maxay meel ka soo dhaasatay deydeyso oo leedahay taro reer hebel taro biyo ma ku jiraan halkay booyadii ku dambeysay maanta dhan baad wareegaysaa ما إن شاء الله خير ما ندير شيء أنا نسوق على يا خير ما ندير شيء أنا نسوق هاي أنا سوى هشانو ولا ريال وذا تشيرنو ولا ريال أنا سوى هشانو ولا ريال وذا تشيرنو ولا ريال barnaamijkan waxaa idiin soo saaray anigoo ah Cabdisataar Sabri tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin dhammaantayo saaxiibayaal nabadino